madaxweynaha dowladda ku-meel gaarka Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ayaa guddi ka kooban 7 xubnood u magacaabay wadahadalka Somaliland. madaxweyne Shariif Sheekh Axmed ayaa guddiga u magacaabay waxaa hogaamin doona wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka xukuumadda ku-meel gaarka Soomaaliya Cabdisamed Macalin Maxamuud Sheekh Xasan Faarax. wasiiru dowlaha arrimaha dibadda dowladda Soomaaliya Xaamud Cali Maasheeye ayaa u akhriyay saxaafadda qoraalka ka soo baxay xafiiska madaxweynaha dowladda ku-meel gaarka Soomaaliya ee lagu magacaabay guddiga dowladda ku-meel gaarka Soomaaliya u matalaya wadahadalka Somaliland. warqadda madaxweynaha ka soo baxday waa sida soo socota. markuu arkay qodobka afraad faqradda koowaad qodobka 44aad iyo qodobka 11aad faqradda labaad ee axdiga dowladda ku-meel gaarka ee Soomaaliyeed, markuu dhageystay wasiirka koowaad ee xukuumadda ku-meel gaarka, markuu garawsaday in dalka Soomaaliyeed ay soo gaadhay dhibaatooyin badan oo horseeday burbur, kala shaki iyo is-aamin darro, taasna ay keentay in gobollada Soomaaliyeed qaarkood ku dhawaaqaan madax bannaani laga bilaabo bishii May 1991 asagoo garawsan in dadka Soomaaliyeed xallin karo wixii dhibaato ah ama afgaranwaa ah ee dhexdooda ka dhaca, markay u muuqatay in hawlaha ugu muhiimsan ee dowladda ku-meel gaarka ah looga baahan yahay ay ka mid tahay dib u heshiisiinta dalka Soomaaliyeed iyadoo la raacayo qodobka afraad xubintiisa koowaad ee axdiga dowladda ku-meel gaarka ee federaaliga. markuu u muuqday warmurtiyeed shirkii London ee 23 February 2012 oo ku talinaya in dowladda ku-meel gaarka iyo maamulka Somaliland ay bilaabaan wadahadal horseedaya xalinta khilaafaadkooda, qodobka afraad laga bilaabo markii madaxweynuhu saxeexo xeerkan waxa uu magacaabay xubnaha hoos magacyadoodu ku tilmaaman yahay inay iyagoo matalaya dowladda ku-meel gaarka lagana wada hadlo xubnaha iyo maamulka Somaliland u magacawday inay ka qayb galaan wada hadalka dowladda iyo maamulka. xubnaha dowladda ku-meel gaarkii ay magacawday waa sida hoos ku xusan. koowaad, Cabdisamed Macalin Maxamuud gudoomiye. labaad, Axmed Xasan Gaboobe Ugaasbile xubin. Cabdilaahi Xaaji Xasan Maxamed xubin. Dr. Cabdi Naasir Maxamed Cabdulle xubin. Jaylani Nuur Iikar xubin. Daawud Maxamed Cumar xubin. Cabdilaahi Axmed Jaamac xubin. qodobka labaad, howlaha laga wada hadlayo waxaa la raacayaa qodobka 6aad ee shirkii London oo ku baaqay isla markaana wada jir ay beesha caalamku u taageereen inay wada hadlaan dowladda ku-meel gaarka iyo maamulka Somaliland ayagoo ka wada hadlaya mustaqbalkooda, taasoo loo baahan yahay inay ka heshiiyaan. qodobka 3aad, xeerkan wuxuu dhaqan galayaa markuu saxeexo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliyeed, waxaana lagu soo saarayaa faafinta rasmiga ah ee jamhuuriyadda Muqdisho bishii Abriil 15keedii 2012 madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliyeed Shariif Sheekh Axmed.